Munir Yamal oo ah aabaha dhalay Lamine Yamal oo ah weeraryahanka xulka qaranka Spain yaa si kaftan ah u sheegay in laga yaabo in wiilkiisa uu sabab u ahaa in Messi uu noqdo laacib weyn isagoo ka hadlay sawirkii ayaamaha la dhex marayay baraha bulshada. Hadalka aabaha Yamal ayaa yimid kadib markii la faafiyay sawir Messi oo xidig Inter Miami ka tirsan oo haya ilmo 2008 markaa uu ahaa ciyaaryahan Barcelona. Ilmaha yar wuxuu ahaa Lamine Yamal iyadoo aabihii Munir uu sawirka soo dhigay isbuucii la soo dhaafay bartiisa Instagram-ka isagoo ku soo dulqoray bilow laba haliyay. Munir Yamal ayaa mar walba aaminsanaa in wiilkiisu noqon doono xidig weyn isagoo yiri waan ogaa in xidig uu noqon doono xidig weyn. Aabba kasta wuxuu rabaa wiilkiisu noqdo kan ugu wanaagsan. Waxaan rajeynayaa in mustaqbal ifaya iyo inuu ku guuleysto koobka qaramada Yurub. Yamal aabihi ayaa inta ku daray waxaan doonayaa in wiilkaygu noqdo laacibka ugu daada yar ee ku guuleysta koobka Yurub. Dhinacan kale arrinta dad badan ka yaabisa ayaa ah in aabaha Yamal uu sheegay wiilkiisa Yamal uu ka fiican yahay Messi. Wuxuu yiri aniga ahaan wiilkaygu waa kan ugu wanaagsan marka la fiiriyo dhan walba. Lamine Yamal aabihi ayaa yiri Messi wuu nasiib badan yahay sababtoo ah wuxuu sawir la galay wiilkayga. Hadalladan cajiibka ah ayuu ku soo qoray bartiisa Instagram-ka isagoo hadlay kahor kulanka finalka caawa oo wiilkiisa ciyaari doono xulka qaranka Spain kuwa wajihi doona xulka saddexda libaaxa Ingiriiska final Berlin lagu ciyaari doono. Lamine Yamal ayaa wacdaro cajiib ah ka dhigay tartankan isagoo xulkiisa u suuragelinayay gaaraan finalka tartanka xiisaha badan Euro. Xilli hore bilowgii hore tartankanna Spain ma ahayn xul loo saadaalin kara heerkan inay soo gaari karaan, laakiin isfahamka ciyaartooyda, baasaska quruxda badan ciyaareen, deganaanta, goolasha badan ee dhaliyeen ayaa keentay waqtigan in loo saadaaliyo xitaa inay ku guuleystaan tartanka xiisaha badan Euro.